السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت لي وحرن سديتين مي في عنتنا نويدي وناكسنهاي مالي وناكسن maanta sabti noo tahay waa duhurnimad bahashan yar baa soo qaatay waxaan rabaa maanta wixii aan rabo inaan sameeyo oo dhan inaan qorqorto ilaa 4 galabnimo laga gaarayo 4 waa xilligan shaqada galayo marka hadda laga bilaabo duhura ilaa 4 wixii aan qaban lahaa ayaan qorqoranayaa waxawaaye bahashan yar waxaa lagu qorqorto waxyaabaha rabtid oo dhan markaad doonaysid waad ka masixay markaad rabtid waa ku qoranee marka waxawaaye wixii aad rabtid inaad sameysid markaad qorqorotid ood waqtina u qabatid waxay kuu saamixaysaa inaad ogaatid waqtigaagu meeshuu ka baxo iyo waxaad ku bixisid oo time management lahaatid haddii kale waqtigaaga social media cunaayo oo maba ogidba maalintii oo dhan waqtigaaga wixii kaa qaadanayo wixii ku baxaayo markaasaa darteed baan bahashan yar ugu qorqortaa markaan rabo inaan time management sameysto soo waxyaabahan qorqortay ugu horeyn waxaan ka bilaabay inaan dharka maydho marka dharkii baan ku riday qasaaladii carfisadii tediyaan ku shubay waa kaasaan waan bidhadiya oo tatabtay ayadaa ismaydhayso marka intaan shaqada kala qabanayo ay dharka iisii nadiifoobayaan oo ay iisii maydhmayaan kadibna waxaa soo gala qolka hurdada qolkaan ugu hor hagaajinayaa marka qolku waa iska nadiif isaga habeen walba waa hagaajiyaa ilmihii waxay wasakheynayaan ma joogaanba marka waxaan sameeyay go-ii saarnaa unbaan ka qaaday kadibna go' kale unbaan soo saaray saa ujeedaanba soo giyaan sariirta ku goglay kadibna waa kana waxaan soo qaatay birkimooyinkan laba waa kuwii caadiga ah lagu seexanayay saddexna waa decoration iyo mid yar oo afraad marka birkimooyinkii baan galalka gelgeliyay marka galalkan aan birkimooyinka reer geliyay waa kal oo creamy ah cadaan ma ahan beige-na ma ahan aduu waa wax cadaankun ku hooseeya beige-na u dhoweyn creamy kadibna birkimooyinkiian saa ugu soo yara sharaxay saddexdii birkimo midaan yarna dhinaca dhexdaa u dhigay dhac kuleylihii baa lagu jiraa buste walaa xalaaf walaa wax kale ma ku goglaayo meesha because maba hubanaynaba wixii dhan waan iska xareeyay ilaa inta qabowgu soo baxaayo amba xilli roobaadka la gaarayo kadibna bustaha yarka oo sharaxaada ah oo cadaanka ah baa meesha ku sharaxay maadaama uu meel yaro cad leeyahay midka cadaanka ah baa meesha ku sharaxay sharaxaadaha sariirtii cadar isaga buufiyey daahiyadiina sidoo kale daahiye awal culus baa igu xidhnaa guriga maadaama marka hore winter ahay laakiin hadda kuleylkii waaye marka waxyaaro khafiifka aan iskaga xidhay oo gaagaaban waanan ka helaa soo cadar baa iyagina ku buufiyey kadibna waa kaasaa dhulkii aan iska soo masaxay kadibna waa kana uunsiyaa usoo shiday qolkii soo qolkii saasuu diyaariyugu yahay horta waxaan nadiifinta ani maantaan qabanayo waa nadiifin yaroo korka aan wax ka yaran nadiifinayo deep cleaning maahan sababtoo 23 bishii imtixaanka iga dhamaaday maalintii 24 ahayd baan guriga farta saa u geliyaan ku uri oo meel kasta si fiican u nadiifiyay laakiin maalmaha kale daarka leedahay waa yaabi lahaydeen waxawaaye Saturday-ga amba Sabtidana guriga markasta deep cleaning aan ku sameeyaa laakiin maanta deep cleaning ma jiro guriga asaaba iska nadiif ah marka qolkii markaan soo dhameeyay fadhigayaan yimid fadhiga birkimooyinka xaggaa saraan iska saartaa fadhiga because waan ku jijiifsadaa waan ku seexdaa intaan habeenkii hurdo maahan inta kale fadhigana waqti ku qaadanaa marka waxawaaye waan vacuum gareeyay shalay tolaa iyaal yararoo jaarkayga ii yimid kadib baan sisin iyo buskud iyo wax siiyey wixii baa fadhiga lagaga daadiyey fadhiga anima ku cunteeyay waan dhowraa waan kulkuuliyay maadaama midaba cadaani ku jiraan soo iiga xumaanin iiga khasaarin marka sisintii wixii dhex galay saa darteedaan vacuumkan u marinayay maanta saan uga soo saara wixii meelaha fadhiga gunta uga galay soo waa kaasa saasa u vacuum gareeyay kadibna birkimooyinkiisii wixoodii baan saa ujeedaan aan dib ugu soo celiyo oo aan usoo sharaxay kadibna miiskan dhexda haddana aan tirtirayaa ana nadiifinayaa waxawaaye meesha markaad maalin walba aad fadhidid ood waqti ku qaadanaysid horey ka uskagoobe marka wasaasa soo alaabtii meesha ii dhex taaltaalay baan dhacdhac saas u yara kilkilin gareynayaa magaaladan aan joogana waa magaalo dhas badanba hataa daaqadanba meel furutid dhaska adduunka kugu soo xaroonayo meeshan aan fadhiyo oo maxaa la dhahay fadhigeygana daaqadba halkaa kaga soo beegano marka dhaskaa u soo gala mar walba soo fadhiga miiska sidii aan u nadiifiyey kadib haddana rooggan yar baan vacuum gareynaya isagana
roogan hadda dhinaca aa u vacuum gelisid midab cadaan uu noqonaa, hadda dhinaca usoo vacuum gelisidna amba u taabatid wuxuu noqonaa madow. Marka waa kaasa sidii aan vacuumka ugu dhameeyay miisaskii meeshooda kusoo celiyay. Ugu dambeynna fadhigayaan cadarkayga yaraan jeclaa oo wadanka la iga keeno saadaad kala dhoo aan ku buufsaday kulaani caraftiisa waan jeclahay wax u dhigmo waan ka waayay wadankan. Dhac fadhigiisa soo nadiif iigu yahay, qolkiina soo nadiif iigu yahay, dharkiina waa nigita ay ku rutay meeshii oo hawshoodu iga dhamaatay. Ugu dambeyn jikadii aan soo galay kadibna qadadii aan rabaa inaan kasoo tuuro qadeero kaale iska arag ah lama arkaan lama maqlaan isku dhaceys ah baa doonaa inaan kasoo tuuro. Waxa waaye shrimp pasta baa ii qorshaysnayd soo tii aan sameynaya waxaan soo qaatay shrimpi af Soomaali malahan shrimpi kii aan waxa weeye barafka kasoo dhalaaliyay kadibna xawaashyo yar iyo milix iyo saliid yar baan ku qasay. Maqliyaan dabka soo saartay saliid yar baan kusoo shubay shrimpiga iyo xabad u saaraya. Xabad baa loo saaraa shrimpiga suu marna dhinacan aad uga shiisho marna dhinaca kale. Hadda mar ku wada ridid ma ku shiilmaayo dhinaca qayrin dhinac bisel uu noqonaa. Dhinaca kalena biyo ii saaran baastadii aan rabaa inaan ku kariyo wax yar oo milixaan ku daray. Yaa kadibna biyaha soo karkarayba baastadii baan ku riday aniga ku walwalaaqaya. Shrimpiga dhinacan 2 daqiiqo uu ooli 2 daqiiqo kadib baa dhinaca kale u rogaya. Waan yar fiiriyo saliid baa ka yaray saliidii baan wax yar ku kordhiyay kadibna basal yar baa soo qaatay basashii aan jarjaraya. Hadda guriga nadiifintiisa waxay qorshaysnayd inaan saacad ku dhameeyo waxaan ku dhameeyay saacad iyo 10 daqiiqadood maadaama video duubayay. Cuntadaana waxay qorshaysnayd inaan ku dhameeyo saacadii aan ku dhameeyay. Videoga markaad duubaysid waqtiga laba jibaar buu kula noqonaa oo kugu badanaa yacni waqti dheer buu baahanaa videoga laakiin caadiyan 30 daqiiqan ku sameyn lahaa hadda qadadan. Soo basashii aan ku gooyay shrimpigiina dhinacii kale buu u rogay 2 daqiiqo dhinacii kale oo yaala uu bislaado waa ka dajiiba. Maqligii aan dib intaan usoo dhaqay aan dib ugu soo celiyay si aan basasha hadda ugu shiisho. Soo basal yar iyo saliid yar baan ku shubay dhac intii aan isku shiilaan dadka saliid badan jecel saliid yar oo micno lahayn aba dheriga dhanba ku shiishaaba. Kadibna dhinaca kalena waxaan ku gogoosana waxa waaye barbarooniga nooca oo casaanka ah ma fahanteen. Soo wax yar kadib basashii ii soo casaatay waxaan kusoo darsaday barbaroonigii dhinaca kalena baastadii ii soo karkartay. Kadib barbarooniga markaan basasha kusoo daray cream yarna waan kusoo daray wax yar oo biyana waan kusoo daray waan daboolay. Kadibna baastadii aan huf la iri way iga jilcaysaa hadii kale hayay baastadii miiraay. Marka laba dhinac ka shaqeynaysid oo video duubaysid wax ka dhib badan adduunka ma jirto. Baastadii ka soo miiray soos tireed baan kusoo noqday xawaashi iyo waxa weeye milix yar iyo basbaas iyo waxbaan ku dardaray filfil iyo adduun baan ka dabageeyay iyo waxaan markii hore ka iloobay basasha inaan ku daro garlic amba toontiina waa ka dabageeyay biyo yar baan ku daray. Dhac intana wax way dhowr daqiiqadood sugay soosaan wallahi bay ma idin sheegaysay u fududahay iyo si u macaan tahay ma malaysan kartaan. Waxa waaye dhowr daqiiqadood markaan soostii sugay shrimpigi iyo spinach yar baan kusoo daray haddana dhowr minute intaan dabka ku sii ridaysay waxa waaye spinach amba koostada ay wax yar u soo hurto. Waxa waaye hoteelada magaaladeeda ku yaala cuntada aan maanta sameynayo marka ka dalbatid $10 lagugu keenaa gurigeyga markaan ku sameysanayna waa $1 waa macaan hoteelada badankooda dhantana laga dalbadaa. Soostii marka wax yar isku soo yara karkartay waxaan kusoo daray hadda waa baastadii baasta dheer. Dhac waa isku walaaqay soosta iyadoo wada biyo ah oo adkeyn baa lagu daraa baastada sababtoo ah waa cream way fadhiisanaysaa lacala hadaa sameysanaysaan waaye. Marka si aysan kaaga fadhiisanin ma dhoweysan waxa waaye dry kaaga noqon baastada waa inaa soos biyo ah ku dartid. Kadibna korka waxaan kaga daray wax yar oo oregano wax yar oo chili flakes ah. Dhac qurux bay ka dhigaan kadibna waa kana ka soo ritay cuntadii inta cuntada ka soo ridan shower baan soo qaatay waa hilmaamay ma idin soo duubin. Waan soo qaboojiyay kadib baan cuntada ka soo ritay waa kana saas way agtay qurux wallahi bilaa. Fruit yarna waa soo jarjartay koob waxa way orange na waa soo ridqaday oo barafan ka soo buuxiyay isku roonoqo naftaada priority ka sii wax walba wanaagsan naftaada ku horreysii markaad naftaada wanaajisid baa dadka kale ka fikiri kartaa oo wanaajin kartaa. Waa kaas maanta saas routine-keygii oo duhurnimadii oo eeka hadda waan nasanayaa
waa idin salaamaya maca salaama. Bye bye.